munaasabadani oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay isla markaana loogu dabaaldegayay madaxweynaha iyo ku-xigeenka la doortay ee Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo Ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa waxa habeenkii xalay ahaa si ballaaran oo aan kala had lahayn looga dabaaldegay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimo oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Somaliland ahna xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani mudane Cismaan Saxardiid Cadaani boqorka beelaha gabooye mudane Axmed Imaan Warsame gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Minnesota Engineer Axmed Cabdi Cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Minnesota mudane Xasan Caateeye gudoomiyaha xisbiga kaah ee gobolka Minnesota Yuusuf Xuseen gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee gobolka Minnesota Maxamed Ictiraaf xogayaha xisbiga wadani ee gobolka Minnesota Shiriin Ramaax afayeenka xisbiga kulmiye ee gobolka Minnesota Cabdilaahi Bulaale afayeenka xisbiga wadani ee gobolka Minnesota Ismaaciil Sandheere gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis Xildhibaan Jamaal Cismaan gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee gobolka Minnesota Abwaan Cabdiqani Xaaji Oktoobar gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee waqooyiga Mareykanka Ducaale Sancaale xogayaha abaabulka xisbiga wadani ee gobolka Minnesota Safiya Muuse gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Awdal Jamaal Timajilic haween cuqaal waxgarad iyo dhalinyaro tiro badan. ugu horreyna waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah mudantii iyo madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan caawa waxaynu isugu nimi waxa weeye waa dabaaldeg iyo inaynu dhammaan isu mahadnaqno waxaynu isugu mahadnaqaynaa oo aad ogaataan reer Minnesota inaad qabateen caawa xafladii ugu horreysay ee ummadda jamhuuriyadda Somaliland ay isugu hambalyeeynaysay laguna hambalyeynayay madaxweynaha la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Maxamed Cali Aw Cabdi marka waxaan leeyahay sharaf bay idin tahay inaad qabateen xafladii ugu horreysay oo dadka inta leeg ee faraha leegi ay ruuxantii ka soo qayb galeen anu maanta waxaan wada hadlaynay madaxweynaha cusub baan la hadlay aan wada hadlaynay inta badan aan wada hadalno waxaanu idin soo faray inaan idinka gaarsiiyo isag mahadnaq iyo salaad diiran waxa kale oo muhiim ah oo hambaliyada imaanu markaynu dhaafnayno maanta halkan uga sameeynaa waxa weeye inaynu u ducayno waxaan ku raadayay madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dawladda cusub oo dhisan doona marka anigu saad ka warqabtaan afar madaxweyne dhisay waxaan mahadnaq iyo hambaliyo u dirayaa madaxweynihii labaad ee aan dhisay mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii taariikhdu ay qori doonto nin halgan dheer wadankan u soo galay oo ahaa xoreyntiisii qayb weyn ka qaatay maantana si sharaf leh iyo maamuus iyo magac kaga tagay baan isagana u mahadnaqayaa waxaanu ka mid noqon doontaa madaxweynayaasha qaranka jamhuuriyadda Somaliland ilaahay cibrigiisa ha raajiya sida daahir riyaale kaahin oo sharaf iyo maamuus qaranka jamhuuriyadda Somaliland ka noqon taladeeda iyo tayadeedana qayb uu ka noqon doonaa madaxweyne maxaan ku raadayay Muuse Biixi Cabdi waxaan hambaliyaynayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo taqaaniin oo runtii aanin aad iyo aad ummadda jamhuuriyadda Somaliland oo waaweynta waxa weeye waa nin degan waa nin tashi badan leh waa nin aan isleeyahay inay ummadda Somaliland waxa ay ka filayaan biidmillaahi kariim isagiyo madaxweyne ku-xigeen ay labaduba ka howlgeli doonaan waxaan halkan aan uga sheegayaa dhammaanba reer Somaliland gudayo dibadba inay Somaliland guuleysatay una wadan iyo qori una guuleysan si gaara
ayaa markan soo baxay xitaa tigirka ku soo baxay wallahi madaxweynaha ay soo jaray si gaara ayuu moogtahay idiin og yahay iguna salaan markaad xagga istaagtida xafladda baan ka qayb galayaa baan idhi ilaahayna uu ii rumeeyey xafladdiina aniga caawid igala soo qayb galay maanta waxaynu u baahannahay in waddankeena ictiraaf helo ictiraafku helayaana waxa weeyaan inakoo midowna oo midnimo noqona marka koowaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa oon soo dhowaynayaa dhammaanba bahweynta jamhuuriyadda Somaliland ee ku nool gobolkan Minnesota iyo guud ahaanba Mareykanka ee runtii ka soo qayb galay xafladeenan aynu ugu dabaaldegayno madaxweynihii lixaad ee jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkii la doortay November 13 electionkii dhacay runtii waxay inoo tahay sharaf in inaga oo mid ah inaga oo aan ahayn xisbiyo inaga oo aan ahayn qolo inaynu sidan oo kale ugu dabaaldegno xaflad qaran oo aynu u dabaaldegayno election historical runtii ah oo wax weyn ka bedeli doona mustaqbalkeena wadan ahaan runtii waxaan xasuustaa iyada oo ay tahay August 13keedii annagoo xaflad xisbi qabanayna talooyinkii aan habeenkii halkaa uga soo jeediyay markaa musharaxa ah imagana madaxweynaha la doortay ah in ay ka dhabeeyaan waxa ummadda loo ballan qaado Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay uufu bil ahdi innal ahda kana mas'uula hadaa tiraado ummadda waxbaan u qabanayaa wax qabadkeedii waa laga rabaa la xisaabtankeediina waa ku dabayaala taa waan xasuusinaynaa madaxweynaha la doortay inay wax qabadkii ballaarnaa ee ay wadanka u ballan qaadeen inay insha Allah ka dhabayn doonaan Allahna la garab galo aniga gaar ahaan farxad bay tahay in maanta xafladan ka soo qayb galo sidii hadhow loo oran lahaa way kala maqnaayeen waynu wada joognaa dhowr jeer hore aan shirar ka hadlay waxaan idhi haddii annagu haddaanay xisbiga kulmiye haddiina laga guulaysto annagoon murmin ayaanu si sharaf la u dhiibaynaa waxaanu filaynaa mustaqbalkana inaanu qoris dhiibkaasi uu inoo noqdo dhaqan iyo caado waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha hadda madaxweynaha inoo ah madaxweyne Muuse Biixi oo dhawaan ka degi doona madaxweynenimada una dhiibi doona waa qoridhisi dhiibe Cabdiraxmaan Cirro ilaahay waxaan ka baryay inuu isagana mataqaana cimriga u dheereeyo caafimaadka labadaba madaxweynaha hadda loo dhiibi doono Cabdiraxmaan Cirro waxaan u rajaynayaa khayr sharaf iyo ilaahay inuu xilka la qabto waa xil culus waa shaqo culus dhammaanteena wuxuu inoo baahan yahay la shaqeyno inta ma isku afgarana waxaan kaloo halkan ka tahniyeynaa saddexda xisbiya soo baxay annagu kulmiye waan soo baxnay wadani baa soo baxay iyo xisbiga cusub ee la hadda maartay wax kale ku dari maayo asxaabada malka fadhana qaano waa ka wax kale ku dari maayo inta waxaan leeyahay dhammaantood waa sharaf iyo qiimo ay tahay inaad kala soo qayb galo xafladan ul iyo diirkeed baynahay ul iyo diirkeed ayaynu nahay waa habeen midnimo waa aragtaan calanka aynu haysanaa calanka Soomaaliland ma aragtaan kale xusbiyo ma jiraan waxa weeye waa habeen qaran xusbiyadu waqtigooda ay soo bixi doonaan ama maartay laga hadli doona arrimahooda marka habeen sharfan weeye waxaan tahniyad kal iyo laaba u dirayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee la doortay ee dhaartu u harsan tahay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro iyo ku-xigeenkiisa xafladan waxay daaranayd hambaliyada iyo soo dhaweynta madaxdeena cusub ee aynu qaranka u dooranay madaxweynaha oo aynu u dooranay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo madaxweyne ku-xigeenka oo aynu u dooranay Maxamed Aw Cabdi labaadka waxaan hambaliyo aan mug yareen aan u dirayaa dhammaan shacabweynaha Somaliland khaasatan golayaasha amniga ee suuro geliyay inay qabsoonto
doorashadii quruxda badnayd ee amnigeeda aanay shimbir xagan waxaan leeyahay thank you waan idin ognahay hadaan nahay shacabka Soomaaliland hawshaad qaranka u haysaan tu guud ahaaneed iyo tu gaar ahaaneedba shacab la isiyo ciidankeena qaranka khaasatan booliiska iyo saraakiisheennaba dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo supporterska reer Soomaaliland halka isugu yimi caawaad iyo aad baan idin salaamaya waa habeen qurux badan waa habeen farxadeed waa habeen aan ugu talagalay hadalku inaanu badanin oo dadku ay farxaan waa laga daalay intii campaign-kan ku dhameeyna hadal baan u maleynaya habeen walba la hadli jiray laakiin caawa waxaan rabay anigu celebration inay noqoto waxaan halkan hambalyo iyo tahniyad uga dirayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhawow Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan ku leeyahay madaxweyne dadka iyo dalka iyo yar iyo weyn say wallahi iyo dadkii wadankii joogay kulli loo wada han weeyahay baa tahay ku soo dhaw baan ku leeyahay ilaahay xilka qaadaha ku fududeeyo dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa oo aan leeyahay calanka Soomaaliland yeena ka kaftamin qarannimada Soomaaliland yeena ka kaftamin muxaafid iyo mucaarid labaduba at the same waxaynu wadanahay Somalilanders so please calanka inoo ixtiraamo inoo xushmeeyo baan leeyahay waxaan kala halkan tahniyad uga dirayaa madaxweyne ku xigeenka Maxamed Cali waxaan leeyahay isagana ilaahay ku fududeeyo xilka qaada insha Allah wareen waxaan u mahadnaqayaa shacabka reer Soomaaliland oo aad doorashadii aad aragteen leenka ku wada jiray iyadoo qof waliba xisbigu doonayay iyo madaxweynuhu doonayay u cadeynayay aan deere herdiin oo si habsame leh ay doorashadaas u dhacday shacabkaas aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland ee hadda Muuse Biixi Cabdi oo suuro galiyay in doorashadaas si habsame oo nadiifa ay u dhacdo wax faragelin aan ku sameyn markii natiijadii soo baxdayna aqbalay oo u hambaliyay walaalkeena soo baxay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo ku xigeenkiisa Maxamed Aw Cali Cabdi dadka faraxsan baan ku jiraa Soomaaliland guusheedu dawayna wada saamaysaa amba mucaarad noqo amba muxaafad noqo waan wada faraxsanahay waxaan anka ka hambaleynayaa madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Dr. Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo Maxamed Cali madaxweyne ku xigeenka iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland ee meel kasta ay joogaan adduunka dacanadooda waxaan leeyahay reer Soomaaliland hambaliyo reer Minnesota de hadal ka ramayno waa inagu markasta waxaynu taageersanahay horumarka iyo wadajirka reer Soomaaliland caruur cirhoole dumar cid walba waxaan markasta leenahay wadajira Soomaalilandna waa mid amba dawlad cusub ha timaado amba dawlad hore ha sii joogto amba turtamba ha timaado reer Soomaaliland mar walba waa mid hambaliyo reer Soomaaliland ما شاء الله عاو حفلة هذا قرح بدن أيا هل كان كل كتين والله ليال أنا ما قاعد أقول جمال عثمان وأنا هاي قدومي هذيك مدة الحياة منيابوليس أنا قاعد أقول ما قاعد مقالة منيابوليس أما دولة منيابوليس لما وحنا هم بلين يا رئيس سومال لان ميول بدون كأي كتشوجان دور الشهادة قروح لبضان سومال لان وحنا كده عي دور الشو كده يشملن مدحوينيه هوري موسى بيحي سي حرقاله ايو او قمن قابيي doorashadii ka dhacday Somaliland sababta natiijadana uu aqbalay taasna waxayna tusaysaa in ay mudan tahay ku dayasho doorashada waxay ahayd mid historic ah dhinaca Afrika keeska Afrika ka dhacday sababta aan sidaa u iri waxaan arkay sawirro madaxweynaha cusub Cirro iyo Mayor Mooge oo public space ka campaign gareynaya with no security taas waxay tusaysaa in Somaliland ay nabadda geeska Afrika ay number 1 tahay sababtoo ah
meeyarkii magaalada mooge oo saaxiibkay ah oo u kaambeen garaynaya madaxweynaha cusub si open ah oo publigiina la hadlaya maanta waxaan halkaan u taagnahay inaan communitygayga la farxo lana dabaaldego xafiiskaygu mar walba Somaliland mar walba wuu u furan yahay mar walbana wuu u furnaa sanadadii la soo dhaafay xafiiska Sir Minneapolis City Hall-ka waxaa noogu yimid madax ka socota Somaliland oo aad si sharaf leh ugu soo dhaweynay aniga iyo duqa magaalada Mayor Jacob waxaa ka mid ahaa nin gudoomiyaha City Council-ka ka mid ah Hargeysa wiiwaa la dhaho waxaa kaloo ka mid ahaa wasiirka waxbarashada Somaliland si sharaf leh ayay u yimaadeen xafiiskayga waxaana ka wada shaqeynaa mar walba in loo hormariyo dadka Somaliland saasoo ay tahay dhalinyarada Somaliland baa u hambalyeynaya dhammaan oo Minnesota degan si isugu duuban yihiin mar walbana ay jecel yihiin dalkooda inay hormariyaan ha noqoto waxbarashada ha noqoto democracy-ga iyo ha noqoto sida dalka wax lagu culinayo marka walaalayaal hambalyo mar labaad hambalyo Somaliland ha noolaato madaxweynihii laga badiyay sida fiican sharafta loo aqbalay waan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee la soo doortayna waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow waxaan doonayaa in yaro ducaa iyo dardaarana inaan madaxweynaha iyo idinkaba yiraahdo wuxuu yidhi dabka noo iftiimaya dalka ka bidhaamaya dariiqii horumarkiyo waa hoy waa dabaaldegii dadaalkaad soo gasheen baa dabeelaha guushiyo dabaashaad loo dhigee hoggaankaa cusub ee la doortay dhammaan u duceeya oo u dira hambalyada gobay Somaliland mid baan leeyahay Somaliland may kala guulaysanin ee way wada guulaysatay Somaliland waxay indhaha caalamka iyo wadamada yaryar ee jaarkeena aba tustay dimuqraadiyad kala dambeyn iyo ixtiraam badiyaabo bahdeen shalay toole Cabdiraxmaan baa laga badiyay Muuse taladiisii iyo xukuumaddiisiiba waynu soo aragnay reer Somaliland waxay u garteen inaynu bedelno oo aynu jaanis siino madaxweynaha hadda aynu caawa hambaliyadiisa iyo celebrationkiisa ku jirno mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro dadka asxaabta ee caawa martida nagu ah ee ka soo qayb galay xafladan aadka u qiimaha badan leh aynu u qabanay madaxweynaheenii lixaad ee Jamhuuriyadda Somaliland kulligiin dhammaantiin thank you for coming aad baa u mahadsantihiin ana ka soo qayb gasheen farxadana nagala qayb noqoteen caawa Somaliland ha jirto ha joogto farxad gaar ah ayay tahay maanta inaan xafladan aad ku quruxda badan leh madaxweynaha lixaad lagu dabaaldegayo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali aan ka soo qayb galno anagoo wada faraxsan oo maanta hal Somaliland naga wada dhaxayso waa la ka soo dhamaatay sidaan wada ogsoonahay doorashadii dad badan baa indhaha ku eegayay caalamka waxay islahaayeen doorashadan maxaa ka dhici doona laakiin waxa ka dhacay waxaan bulshada iyo dadweynaha la indhaha ka qabsan kareen oo ah in Somaliland maanta aqoonsigii wax yar u jiro sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi hadallo ka soo jeediyay qaar kamid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana hadalladoodii kamid ahaa sida tan xafladeena muhiimadeena waxa weeye waa hambalyo iyo duco wadankeena doorasho ka dhacday hadaan reer Somaliland nahay waxaan filayaa waa doorasho cid badan oo Soomaaliya ay naga dayan doonto doorashadaas waa doorasho aynu ku gaadhnay guulaad u ballaaran sida dad badan sheegeen maynaan kala guulaysan reer Somaliland way wada guulaysteen xaqiiq weeye taas inay wada guulaysteen waxaad ku garanaysaa halkan xisbi ma fadhiyo arrimaha soo jiita waxa kamid ah asxaabtii qaranka oo dhan baa fadhido la xaadirinaya kulmiya fadhiya ka hoos soo baxday baa fadhiya wadaniyo xafladda qalqaaladeeda helaba fadhiya ururadii kalena way joogaan
marka yacni inay guul Somaliland tahaya oo aynu wada guulaysanay taasaad ku garanaysaan madaxweynaha cusub ee la doortay waan u hambalyeeynaa madaxweynihii horena waajibaad dastuuriya uu qabtay kanna waa looga fadhiyaa sida dastuurku doorashadu maaha mid aynu cidna ugu hambalyeyno cidna aynu ku jeclaano doorashooyinkuna adduunka way ka wada dhacaan waana elite bargain waa meelaha eliteku inuu isku bedelo oo fursad la isku siiyo dalka marba qof inuu maamulo waa waajib saaran waana constitutional dadka reer Somalilandna waxaan u sheegayaa inay tahay waajib aynu ku leenahay madax kastoo timaada inay doorasho qabato waqtigii loogu talagalana ay qabtaan xaflad karaamaysan oo dalkii iyo dadkiiba loogu hambalyeeyay madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha labada gool dhaliyay ee guuleystay ee marna doorasho qabtay isku sidkan marna hambalyeeyay oo isaguna uu sharaf iyo karaamo mudan yahay iyo kuwii hore ee Somaliland maxaan ku raa soo dhisay hadda la tirinayay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 baa la maray marka adeewa caaw xagga sare ka qabsada weey halkan waxaynu isugu nimi hambalyo aynu hambalyeynayno madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo guuleysatay ayaynu halkan u nimi marka inta hambalyada ah ayuun baan aniguna ka soo qayb galay waxaan marka hore hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali walaalayaal waddankeennii waxa ka dhacay doorasho aad u qurux badan waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo madaxweyne ku-xigeen Maxamed Cali aw Cabdi xaqiiqdii waa laba nin oo aad u saaxiib ahaa oo in muddo soo wada shaqeeyay oo imika uu doorashadu aan isku keenin waxaan filayaa inay waddanka wax badan ka qaban doonaan waxaan ugu horeyn halkan uga hambalyeynayaa gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha xisbiga wadani Axmed Cabdilaahi iyo tiimkiisa oo xaflad qurux badan noo qabtay inta ka dambeeyo waxaynu u dabaaldegaynaa madaxweynaha lixaad ee la doortay maanta damaashaad u baynu ku jirnaa kulay waxa daarki jirteen anagoo dee xusbiyo olole ku jirna moogtay ololii uu dhamaaday dee dalkiina waa guuleystay mid waxaan oranayaa madaxweynaha hadda talada ka degaya Muuse Biixi Cabdi run ahaantii Muuse madaxweynaha ka degaya wuxuu inoo qabtay dee doorasho maanta lagu dheehanayo Somaliland quruxda iyo wanaag iyo campaign-kii quruxda badnaa ee kuraasida la kala qaadanayay iyadoo xusbiyada la kala yahay waan ku mahadnaqaynaa waxa la yiri ahlul makka yaarifuuna ala ahlihim radiyallahu ali bin abi talib reer makka way yaqaanaan ahligood anuu dardaari maaya madaxda la doortay because waan aqaanaano Cirro iyo Maxamed Cali baa waan aqaanaa marka dardaari maaya waanu ducaynayaa waxaan leeyahay xilka Allah idin fududeeyaan la waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha Cabdiraxmaan iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay ilaahay uga baryo inuu ilaahay xilka ku asturo guushaas victory-ga ahna waxaan ku hambalyeynayaa aan leeyahay hambalyo madaxweynihii aanu dhisnay ee aynu la shaqaynay iminkana wuxuu weli inooga baahan yahay garab iyo taageero iyo inagoo midaysan inaynu qarankeenna iyo calankeenna wada dhisno hambalyada doorashadii dhawaan inooga qabsoontay Somaliland taasoo aynu ku wada guulaysanay dhammaanteen oo aynu ku calaam saari doono madaxweynaha cusub ee lixaad ee Dr. Cabdiraxmaan Cirro xagga waxa ka leeyahay dhowr kalmadood oo midi ay daarayso madaxweynaha cusub midina dhammaan shacabka Somaliland oo ah taageerayaasha inta badan taageeray isbedelka
wada isbedel doonka waxaan leeyahay marka hore Dr. Cabdiraxmaan ilaahay ha kugu garab galo oo ha ku dhib yareeyo hawsha adag ee lagu doortay taasi waa mid labaad waxaan leeyahay dhammaan dadkii isbedel doonka ahaa ee u codeeyay sida weyn ugu codeeyay madaxweynaha cusub in aanay marnaba dhici doonin inay disappointed noqdaan ay arki doonaan waxay ku farxaan anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada beesha Gabooye waxaan maanta halkan aan iskugu hambalyeeynaa doorashada quruxda badan ee inoo dhacday oran mayno kaliya ee wadani baa guuleystay qaranko dhan baa maanta guuleystay Somaliland waa dhulkaygii waa dhaxalkii awooyaday anigu waxaan ka soo jeedaa deegaanka Hargeysa nin Gabooye baan ahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo mudane Cabdiraxmaan Cirro wuxuu noo ballan qaaday in wasiirka ugu horeeyo uu noqdo nin Gabooye waxaan rabnaa waxa weeye Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland loo dhan yahay Somaliland wayna wada kaftabaynay mooyaane meesha laguma kala tegin dowladdu waa dowladeedii tii tagtayna waa tayni tamaanta joogtana waa tayni calanka inoo muhiima wada dhalashada inoo muhiima nabadda inoo muhiima waxa inoo badan inaynu ilaashano calanka kaliya dabcan inagu reer Soomaaliland waa naqaanaayo 6 madaxweyneenu soo dooranay dimuqraadiyadda in badan may ka shaqeynanay laakiin dad badan oo dibadda ah oo Soomaaliland aan ogeyn waxa ka jira ayaa la wanayo talo Muuse ma banaynaya talo doorasho ma dhigaya Muuse waa military waa kan madaxweynuhu wuxuu cadeeyay in isaguna uu cod ku yimi codna uu ku tagay hambalyo iyo saxaabo uu mudan maadaama dadkii kale proof-ka u sheegay inagu walba waa ogeyn inuu banaynaye hore ma u soconnaa hore ma u soconnaa Somaliland ay diyaar mawtiin in hore u soconno hore ma u soconnaa yes hello isbeddelka ma ka dhawaynaa yes Somaliland ay hore ma u soconnaa ganacsigii ma bilownaa nabadda ma ka dhawaynaa dhaqaalaha Minnesota ma geynaa Somaliland maalgashigeeda ummadda ilaa Kenya ilaa Ethiopia halkee baynu geynaa Somaliland ma waar diyaar ma nahay inaynu hore u soconno oo isku duubno gabagabadii munaasabadaasina waxaa heeso ka turjumaya qarannimada Somaliland iyo kuwa lagu taageerayo madaxweynaha cusub ku soo bandhigay madashaasi fanaaniintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi